hamurgooni way calayhim korkooda oo bimacnaa waxa weeye kufriga iyo xumaanta ay samaynayaan iyo korimaadka ka hor imaanayaan islaamka yeen adiga muruku gelin ba Allah subhanahu walaa takun hana ahaanin fi dayqin mid uga sugan dayq yani ciriir uga jira oo ciriir ku sugan mimma yamkuruna markay ay falayaan tagaasta ay u sameynayaan inaan islaamka faafin oo aan la fahmin oo aan la rumayn arrinta yeen muruku gelin ba Allah subhanahu wa ta'ala arrinta marka waxa weeye dacwada islaamka dabeecadeeda waxa kamid ah in dadka madaxda ay dhibsanayaan sababtoo ah waxa weeye dadkii loo celinayo rabbil caalamiin weeye Allah shiriina ka amar qaataan loo celinayo weeye madaxda tawaaqiidkaana waxay doonayaan dadku iyaga inay ku xirnaadaan oo iyaga ka amar qaataan oo Allah loo gudbin bay doonayaan dacwada Allah markii maaragtay bilaabato dadka Allah loogu yeerayo dadka madaxda ah waxay bilaabayaan dadka inay ku diraan oo ku been abuurtaan oo makr u sameeyaan hameen iyo maalinba si maaragtay diinta Allah looga cararo oo loogu been abuurto qofka daaciga oo islaamka u yeeraya qofka marka daaciga ah oo muslimka ah ama nabiga Allah oo alla soo diray dadka wuxuu la jecel yahay oo xariis uu ku yahay inay hanuunaan oo islaamnimadii dhabta ah ay qaataan si cadabka Allah uga badbaadaan waxa kulmaya isagoo la jecel hanuunkii oo garanaya meel kale lagu badbaadaa inay jirin iyagii oo macna islaamkii la dagaalamaya oo culaadinaya oo makrifaaya way marka inda la'aanta gaalada ay kamid tahay macnaha wixii iyaga halaagooda ahana waa doonayaan wixii maartay liibaantooda ahana waa ka cararayaan yani waxa weeye hashi Allah subhanahu wa ta'ala aayada uu ka dhigay badarkiisa ayuu inay dilaan ku tashanaya oo nabiga inay dilaan ku tashanayaan si adduunkan u joogaan oo maartay dadnimo u dhisnaato oo dawladnimo u dhisnaatay dunyada wala arintii Ilaahay ku baadin lahaa ku halaagi lahaa marka jaahilnimada kafaarta kamid qofka daaciga markuu fahmay yahay inuusan murugu isgelin oo arintan waxa weeye Ilaahay baa wata dadkana in badan baa naar loo abuuray naar been u badan sida daraaddeed isaga waajibka saaran waxa weeye inuu xujada gaarsiiyo aakhiro ay ku marsiyo nin Ilaahay wax lama sheegin ay aakhiro oran baa isaga laga doonayaa inuu dadka gaarsiiyo intuu gaarsiin karo inuu gaarsiiyo laga doonayaa si aakhiro su'aasha Allah uga badbaado dadka maxaa wax u gaarsiin weeyay wixii aan ku barnay maxaa dadka u sheegay weeyay si aan loo oran laakiin waxa weeye qadiyada hanuunka oo qofka hanuunaya iyo qofka maaragtay gaalnimada ku sugnaanaya waa doorasho Allah weeye Ilaahay qofku doono buu hanuunaya mashii'a Allah waa loo deynaya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ويقولون waxay oranayaan oo waxay yiraahdaan gaaladu mata hada alwa'd gormo weeye wa'diga iyo ballanqaadkaas oo quraanku ballan qaadayo oo in la soo saarayo oo xisaab iimaanayso maalin dambe jirto in kuntum hadatiin saadiqiina ku rusheegay oranay wax amaartay ku rumeeyaan arrinta in badan baa loo sheegay oo aayadii Ilaahay kooniga ah la tusayo lagu jeedinayo fiiriye la lahaa Ilaahay keenay miisan mar labaad keen karin dadka Ilaahay baa abuuray heerarka soo mariyay haddana Ilaahay baa la tagaya meesha uu geenayana haduu idin sheegay rasuul idin soo diray ina rumaysaan ma wax kale ma furno way xayal haddaba waa la idin keenay idinku waa la tashan aakhirana waa la idin keenay idin waa la tashan way qaalada marka macaalinimo u yeelayaan sida way yaqooluna waxay yiraahdaan mata hada alwa'd gormo way ballanqaaska in kuntum hadatiin saadiqiina ku rusheegay qul waxa tirada asa waxa la arkaa an yakuna inuu yahay hadifa lakum iqtaraba lakum way idin soo dhawaaday بعض الذي تستعجلون قار كميدا كنا دغدغسنيسان waxa la arkaa cadaabka aad u degdegaysaan inuu noqday mid idin soo dhawaaday oo radifa ficil mutaaddi weeye oo radifakum oo ahla laakiin hadda macnihi baa laga fiiriyaa la yiri oo kala weeye oo soo dhawaaday dana allahum waxa soo dhawaaday radifa Allah أن يكون إنه هذه ردف لكم يعني مد إذن سدوا هذه إذن كبعض الذين يستعجلون غار كم إذا كانت السنة أيام العركة حمل أهلي هاي أو سنغيب قرني حبك ما قرنا يعذاب كأدوب برز وحي هاي هديك كلا قرن معي مركوا برارجون ويتهديد ويجي وكانوا سنين كفوين عذابكم واسد أصبح حقيقة هان كما فوق بني آدم أو غفت مرة دول لنتو أما وحو قليا يعني بركة من الدارها كما النبي عليه الصلاة والسلام نارته وكاية رسولك يري صلى الله عليه وسلم